السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتك وحيرن جوار أوفشال هذا يقول عصبتها بليز سبسكرايب أن لايك أن كومنت هذا هوري اللي جوكت جوك كجوك واللي قاقع عمري عاصمات بركاسن إلهينا وحفظه مال بعدونك جوكتان ولا له وين دين جعله إلهي درتيسان دين كجعله هاي دمانتين حيدين لا يوارا بش يو عمري عاصمات بركاسن ما أنتو حيدنو هايا قصات يات أمرق بدن ونحنون بدن walaalkay ku dhacdana awalan haddaa videoga furtid u duceey inuu ilaahay qalbigiisa u qaboojiyo qalbigiisana ilaahay raxmaanka u dejiyo haloo soo duceeyo walaalkeena qisadan waxay ku bilaabanaysaa wiil ku nool magaalada muqdisho oo walaalkeena Soomaaliyeed ah ayaa waxaa ku dhacday qiso oo la yaab leh oo murug badan oo khiyaano ah ma ahan khiyaano jecel ma ahan khiyaano nafeed taas waa khiyaano lacageed marka walaalkeena waxaa ku dhacday wuxuu iska qadka iska barteen group WhatsApp saad buu taqaanid group WhatsApp ayuu wuxuu ka bartay gabadhi haduu ka bartay gabadhi waxay ku nooshahay wadanka Kampala amba Uganda hadba saa u taqaanid ayay ku nooshahay gabadha hadda xaaliyan kuma noolo oo gabadhi way ka dhaftaraysaa gabadhi waxay ku noolayd waqtigaas wiilka isbaranayeen wadanka Kampala caasimada Uganda المهم wiilka gabadhi way sheekaysteen oo muddo isla wada hadlayeen way isbarteen dad waxay noqdeen walaalo is dhaxgalay oo nacam isfahmay ilaahay dartiisna isku fahmay isku nacam ku wada hadlay noqdeen wiilkii markay sidaas ay dhacday markii wiilku wuxuu sheegay inuu yahay macallin quraan dugsi dhiga oo magaalada Muqdisho ku nool oo arday badan oo dugsi oo ku haayo gabadhu waxay tiri waaw ma sha Allah wiil aad iyo aad u fiican tahay hadii macallin dugsi aad tahay ka waran hadaa timaado wadanka Uganda ala caruurtu waxay ku dhigtaan $50 USA Mareykan ah ayay ku dhigtaan macallin oo hadaa imaato Uganda anigana fiisiyo ku dabaro maxaad ka leedahay macallinka dabcan hamiya galay Soomaali waa $5 ama $6 ama $10 Soomaa hamiya galay hamiga galay amala cunug $50 macallin oo meesha ilmaheena ay dugsiga u aadaan waa 30 kilomitir dugsi ma dhawo subxaanallahi beent xaraam wallahi markaasii waxay ku dhahay $50 mi aha waaye maxaa qarash ugu bixi karo waxay ku tiri fiisada iyo wixii oo dhan aniga dhiibay adiga on lacagta ticketkii lacagtii dugsiga lagu kireenay waxaasii gadgad kitaabadane ani iyo maamo oo isla deganahay fiisa wiilaa kaaga bixinayno is okay waaye macallinkii haye meeqa laga raba hadda waxa soo diraysaa nacam $800 oo lagu sii kireeyo dugsiga nacam waxa la shubaa lacag 3 bilood ah okay macallinkii lacagtii wuu soo diray lacagtii markuu soo diray wuxuu soo diray $400 2 bilood na lagu kireeyo 800 lacagtii hay Soomahan 400 soo hormariyay afarta kale ku soo diray meeqa laga haystaa 800 okay 800 markuu soo diray Allah macallin oo lacagta fiisada waa intaas 300 soo dir waxa kale fiisada 300 way ka badan tahay inta kale ana kugu daraa ilaa wajigiisa ku soo dar 300 uu ku soo daray ticketkii maxaa harsan iyo shoobi ka Soomahan kitaabadii dugsiga waa la kireeyay madrasada dugsiga la kireeyay wixii wax jira ma aha waa wax iska been ah aslan lacagta ninka laga cunaa masaakiinka marka dugsiga la kireeyay dugsiga markii la kireeyay waxa dhacday dugsiga markii la kireeyay ileen 2 bilood doomac qofka soo dhoofin wixii hadana kiri kala loo baahan Soomaa okay macallin kiradii waqtiga fiisadii ku soo bixi weysay kiradina dib ay kaaga dhacday kiradina meesha ka guuraa lagu leeyahay dika lacag kale ku soo diray meeqa kale ku soo diray afar kaleente wuu ku soo diray afarta kaleente sideed waa laga cunay Soomahan markaas fiisas 300 laga cunay meeqa 100 oo dollar markii laga cunay intaas lacag ah waxa dhacday waxa la hayay hoola kugu jirna $50 keen heblo keen $100 kaad macallinku total $1500 laga cunay $1500 markii lagu cunay macallin ana awoodin iska miskiin ah oo waxba oo haysanin oo saaxiib ciyaal iska waxaas ku xiriir eelkiisa leeyihiin walaalo naagtaanid been ama wadata ama qiyaano wadata ama saan wadata walaalo lacagta dhiibin ma qofkan hunguriga haay waxay ta $50 ka soo horeey maahno adama caasahaya العموم macallinkii sidii oo lacagtii loogu cunay macallinkii telefoonkii markii lacagta ugu dambeysay $50 oo soo diray baloogiisa dhakab
baloo waa lagu qabtay. gabadhii telefoon ma qabanayso, maamadii kalena telefoon ma qabanayso. markuu wax warwareysto waxaa loo sheegay gabadhiiba inay dhooftay dalka Mareykanka. macalinkii wuu xanuunsayay, qof oo deeni adduunyo iyo inta ka keen wixii soo jacburinayay. alcamuum waa xanuunsaday ugu dhahay macalinkii, waxaa galay oo dhahay nacam xaalad nafsiid camal ay u dhacday, meel iskeemal ehelkii kulli waa wada gooyeen, oo qofka adaa waxaasaytii nacam siinayo leegu dhaho dhahay dhibaato weyn aa la kulmay oo dhan familiya dhan asxaabi kulli haddee tahay total. alcamuum qur-aanaa lee saaray, masaajida dhowr bilood ku jiray. marka gabar saaxiibadeeda ahayd oo Facebook uu ka hayso ama gabar saaxiibadeeda ahayd ayaa macalinkii caawisa. jisa allah khayr. gabadhaas saytina ilaahay ha barkeeyo, ilaahay ha xafido. hadduu risaaladeeda ay gaarto kale insha allah way gaari doontaa sidaa rajeynayo. ilaahay baa ha ku xafido, allahna ku barakeeyo. gabadhiyaa macalinka waxay tiri marka ha ismurjinin, anaa garabkaaga taagan. naagtaas qof nahaabaday aheeday, waana mahadsan tahay. maxaa la lahaa, waxaana sameynaysaa ilaahay dartiis u noqo. waxaan kuu sameynayaa YouTube, dugsigaagana waa kuu maalgelinaa. qarash intaas kuu filan. macalinku way soo caawisay, way soo biishay. waxay tiri niyaho shaqeyso, xifrad lagu shaqeysaa jirtay. diin soo ma taqaanid? haa. arday soo wax ma bartid? haa. is okay. waxaa sameysaa YouTube furo, nacam, oo dadkana waxaa ku baraysid, masaajidkaagana iska joog. alcamuum gabadhiyaa lacag yar usoo dhiibtay macalinkii, ilaahay khayr ha siiyo. macalinkii markay lacagta usoo dhiibtay sidii oo macalinkana YouTuber waa macalinkaasiiti. koley wuxuu yidhahay magacayga saddexaad haday bulshada ula wadaagtid waa ula wadaagi kartaa. wuxuu yidhahay aniga ima diidaraacsan inay ehelkayga maqlaan iyo waxaas oo aad dida u dhahay. asan waa sheegi kartaa, waa ula wadaagi kartaa. haddaartan waa ii qari kartaa. gabadha magaceeda sheega ugu dhahay, waayo ina asaga qariyo gabadhana magaceeda ma sheegi karo. marka macalinkaasiiti magaciisa waxaa kusoo ekeenaynaa macalin abees. كلية مجلس ومع الهباس انتو كلية يوتيوب كويت قناة انتو يوتيوبرات وهي قناة مع الهباس الله مع الهباس وقلبك الله كودجيو الله نكو قبوجيو إلهينا وحكي خير بدن وكسي الله كو بركة الله نكسي وحكي سي خير بدن مرك ولا الكي وحكي الله هاي الله قلبك كودجيو كوني كوجر إلهنا هكو حفظه إن شاء الله ذي قوسكاك الحمد لله دا قوسكاك هذا سكسون نقطتين فملنا إن شاء الله والدين واسكاه شي دونتان هدو إلهي إتمو مركو حيدين الله هاي أصحابتي دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالو بعدهم كجوكتين آدي آذا إذين جعل هاي إلهينا هايدين حفظوا إلهينا هايدين بركايو دمانتين انتو كحيران جواري أفشال وحيدين الله جزاكم الله خير سيدا مرول بيقو حيرانتين سيدا مرول بيدير جلسين دعادين إيو أمانتين aadi aad ayay kor igu sii qaadaysaa jazaakum allah khayr adin leeyahay commentigiina quruxda badan ayaa mar walba anigana power yeelo waana ku mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qisadeena maanta intay ku eg tahay